جزاك الله خير شيخ. سؤال شيخ waxay leedahay waa su'aalo fara badan oo khuseeya dhinaca makeup-ka iyo isqurxinta dumarka. Marka su'aalahaas way badan yihiin laakiin khulaasadooda waxa waaye daawooyinka la isku cadeeyo diinta islaamka maxay ka qabtaa makeup-ka kale si caadiga ah oo aan cadeynta ku jirin isaga xuduudiisa maxay tahay in laga yeelo ogol alxamdulilah masalada rag iyo dumarba dee shareecadu way fartay masalatu tajamulka iyo in la isqurxiyo shareecadu way fartay guud ahaan nabigana sal ly slam waa kan yidhi ina allaha jamiilun yuxibu ljamaal markii la yidhi rasuulka ilaahayow kibirka markuu ka hadlay baa nin yidhi rasuulka ilaahayow waxaan jeclahay kabahaygu inay fiican yihiin oo quruxsan yihiin dharkaygu inuu fiican yahay oo quruxsan yahay ma kibirkii ka mid tahay kaasuu wuxuu yidhi maya ina allaha jamiilun yuxibu ljamaal alkibru batru lxaqi wagamtu nnaas kibir waxaa la yidhahdaa xaq oo la diido iyo dadka oo la xaqiro la yasaa la yidhaahdaa ama la liido saa darteed qofku nabig alay slam dad waxoogay basaasi ka muuqatayna laakiin baahi ku kalliftay ayna jirinna wuu canaantay nin baa u yimid maalin dharkiisa iyo timihiisi iyo aaday uga muuqato markaasuu wuxuu yidhi xoolo ma leedahay markaasuu yidhi xoolo nooc walbaan leehay geel baan leehay lo baan leehay wax walbaan leehay maal lacag baan leehay wuxuu yidhi orodo isoo hagaaji kadib wuxuu nabigu yidhi in allaha yuxibu ilaahay wuxuu jecel yahay addoonka hadduu u nicmeeyo an yaraa ahara nicmatihi calayh nicmadii inay ka muuqato isagoon ku kibraynin xadgudbaynin in nicmadii shukrigeedii uu ka muuqdo saa darteed buu munaasabaad badanna nabigu alai salaam uu aqbalay in dhar gaara loo gato ciidaha iyo munaasabadaha iyo wafdiyada iyo ziyaaraadka iyo uu qofku munaasabada gaarana isqurxiyo taasi waa mabda' guud oo sharcigeennu si guud buu u faray dadku inay isqurxiyaan wixii khalqiga ilaahay bedelaya wixii laba tilmaamood yeeshana ama saddexan iraahda yeeshana sharcigu waa ku xaaraam wixii yeesha abuurkii ilaahay in wax laga bedelayo oo ilahay waa ka wala yugayiruna khalqa allah khalqa ilaahay bedelayaan ilkaha waagi hore waa la qorqori jiray wax dhuudhuuban oo feenfeenan baa laga dhigi jiray qurux baana laga raadin jiray nabigu markuu xaaraantinimaynayey waa kay walmutafallijaati lilxusn almugayiraati khalqa allahi abuurka ilaahay bedelaya waxaa kaloo reeban naftan iyo jirku waa ammaano wixii tacadiya xadguduba lama ogola saa nafta in la dila loo ogolayn caqligana maandooriye in lagu ciyaaro aan loo ogolayn jirkana xubna in la jarjara aan loo ogolayn sun iyo waxyaabo khatara in la isticmaalana lama ogola wixii dhib caafimaad leh ee khatar geysanayana isna lama ogola rag iyo dumarna isaga mid wey waxaa saddexaadan la ogolayn wixii samaynaya musuq iyo been noqonaya oo dal lagu khiyaamayo oo si aan jirin loogu sheegayo oo masaladu musuq maasuq iyo isdabamaris ay tahay dee qashigu waa xaaraam man qashanaa falaysa mina waa kii nabigu sal intaa wixii aan ahayn filjumlati iyo guud ahaan iyo duuduub asal ahaan isqurxintu way bannaan tahay saddexdaa midna haddaynan gelin wixii caafimaad waxu dhimaya dee waxaan wuu dhimaya anuu ma dhihi karo dhakhtar baa la weydiin iyaga ahlu dikri ka ah wixii khiyaano ahna qofkay u noqonaysaa iyo labada qof ay khusayso qofkuna inuu khiyaano u sameeya ma bannaana rag iyo dumar toona hadhowna hadday soo baxdaan axkaam sharciga ka dhalanayso oo haddiiba neef ariyo xooloo la soo gaaxiyo wuu caano badan yahay dadka lagu khiyaamay sharcigu axkaam iyo khiyaaraad ka furay qof bini aadam oo qof bini aadama nolol khiyaamay iyadana khiyaaraad baa sharciga ka furan oo ka dhasho axkaama de haddana su-aashuna ma aha halkana faahfaahinteedu ma xambaari karto waxa soo harayna wixii khalqi bedelitaan ahna culimmadu waa isku qabteen maxaa bedelitaan ah laba qaybood waxna waa wixii daa'im ee joogta ah waxna waa wixii ku meel gaara wixii daa'im ee joogta ah lama ogolo tan ilkaha tusaale u ah tan ilkaha la qorqoriyo baa tusaale ah wixii joogta ah lama ogola wixii aan joogto ahayne intuu wax bedelo wakhti yar jiraya
oo haddana isbedel soo noqonaya haddana isbedelayaay guud ahaan waa la ogol yahay wixii aan sharcigu si gaara u diidin in magacaabin si timo lagu daray iyo waxyaabaha la midka ahee axaadiidu ka sheekeeyeen wixii laakiin aan joogto ahayn waxyaabaha inta asalku sharcigu waa ogol yahay waxaa ka mid a timahan la cilaamayo waxaa ka mid a iyagoo jilciso la marinayo ama dee sida waddankan aan joogna ka jirta la gubayo la feereynayo timahan la gubo ee la feereeyo carabiga tamliis shacar bee lagu yidhaahdaa baa ka mid ah muddo kadib kuwan madoobeeye culammada bannaysay baa ka mid a in la madoobeyn karo dabcan dee haddaad madoobayso maalin iyo si dhowr maalmood kadib hoos buu ka soo caddaani haddaad cilaan ku guduudisay hoos buu ka soo caddaani isagaa is soo beddelaya guud ahaan saa darteed waxyaabahan ama timo la marinayo ay dib ka soo baxayaan ama kareemyada iyo meekabyada inta la ismariyo iska baaba'ayaay cilaankii baabkiisii weeye haddayna dhib caafimaad yeelanin hadduu jiro dee qofka midabkiisii waxaa kaloo ka mid ah isqurxinta wax allaalay masalada iscadaynta ama kareem ha la isticmaalo ama kiniin ha la isticmaalo ama wax dambeoo soo bixi doona ha la isticmaalo ilaa noloshu way isbedelaysaa maanba qaab cusub baa soo baxaye jirka midabka cadayntiisu ma bannaan tahay masalada hadda soo baxda oo khilaaf badan ka jira waay waxa la isu khilaafayo waa wixii aan dhib caafimaad lahayn dhib caafimaad haddii uu yeesho ma bannaana ama ha iscadayn ha noqoto ama ismadoobeyn ha noqoto ama isjaallayn ha noqoto wixii la isticmaalaya dhib caafimaad leh inuu midab yahay xaaraanu ma aha inuu dhib caafimaad leeyahay buu xaaraan u yahay taa lagama hadlayo waxaa la isku hayaay waa haddii dhib caafimaad uusan lahayn amaba ay timaado haddii aan ka soo qaadno kuwa hadda joogoo dhan dhib caafimaad inay leeyihiin berri haddii la helo kuwa aan side effect caafimaadoo weyn lahayn hadday berri yimaadaan masale khilaaf badan ka jira culimmadoo aad ay u kala aragti duwan yihin wey aniga waxaa ila saxsan ilaa iyo hadda qowlka bannaynaya waayo asalka ibaaxadii cibaadaad ma ahane haddayna dararna lahayn nascadoo xaaraantinimeynayana jirin usuul ay raaci kartana ay jirto usuusha ibaaxada aniga iila dhow wabilahi towfiiq